Waa qiso aad u xanuun badan oo ciwaankeedu yahay Qumayo miyaan ahay aniga. Marka hore, muuqaalka leeg saar, channelkana subscribe soo dheh. Gabadhaanina talo ayay inka rabtaa. Aan bilowno sheekada. Waxaan ahay qoys ka kooban 10 qof, 8 carruur ah iyo hooyo iyo aabe. Waxaan deganayn tuulo u dhow magaalooyinka waaweyn. Mid ka mid ah nolosheennu waxay ahayd mid farxad ku salaysan. Cunuga saddexaad ee reerka ayaan ahaa. Aadna way ii jeclaayeen waalidkay, laakiin jacaylkaas ma ahayn mid waaraya. Markaan soo yaro weynaaday ee aan noqday gabar gashanti ah, sidoo kalena aan ahay gabdhaha xaafadaas gabadha ugu qurxan, laakiin quruxdayda nasiib xumo ayaa ku hoos duugnayd. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah ayaan gabar deris aan ahayn hooyadeed dhashay. Waan u tegey, dharkii xaafadda yaalla ayaan la dhaqay oo waan dhammaynay. Daaradda meel ka mid ayaan fadhiisannay. Gabadhii way kacday si ay shaah inoogu soo shubto. Gabadhii markii shaahii keentay ee weli ayna dhulka dhigin ayaan idhi, alla qurux badanaa bakeerigu. Bakeerigii gabadha ay waday hal mar ayuu dhexda ka qarxay, una qarxay si wali ah. Xitaa islaantii umusha ahayd way soo baxday si ay u eegto waxa dhacay. Anigii waa naxay. Gabadhii iyo hooyadeed waxay bilaabeen xaafadda inay ii geliyaan hiblaayo waa Qumayo. Iyadoo dadka warka isla dhex marayaan ayaan arkay. Meeshuna waa tuulo oo warku si fudud ayuu ku baahi og yahay. Waxaa dhacday maalin gabar deriska ah oon si kedis ah isku aragnay anoo dukaan wax ka gadanaya ayaan arkay dirac ay wadatay oo aad iyo aad u qurux badnaa. Aad ayaan uga helay. Waxaana idhi diracaaga qurux badanaa. Cabaar ayaan sheekaysanay gabadhii. Markii istiri dhaqaaq ayay dhacday. Diraciina waa kan dilaacay ilaa iyo dhexda. Qumayo ayaa tahay ayay igu tiri. Isla dhowr maalin kadib waqtigaas waxaa socday oo soo baxay moobiladan salaaxa ah ee Galaxy-ga ah ama Samsung-ka. Waxaa timid gabar abti dhalay si ay reerka u soo booqato. Waxay wadatay moobilka salaaxa ah. Moobilkii ayaan qaatay. Kadibna waxaan idhi moobilkaaga qurux badanaa ma isiisid. Moobilkii waa kan daarmi waayey ee hal mar damay. Wax walba haddaan samaynay waa daarmi waayey. Bas Qumayadii rasmiga ahayd ayaa noqday. Xaafaddii waxa ii gashay gabadhii Qumayada. Xitaa walaalahay waxay ii bixiyeen Qumayo. Waxay bilaabeen dadkii inay i takooraan. Xitaa dumarka xaafadaha markaan waddada isaga hor nimaanno, waddada ayay ii banayn jireen. Waxay la hadlayaan ma leh. Isla hadal iyo buuq ayaa ii bilowday. Waalidkay waxay bilaabeen inay yiraahdaan tii Qumayada ahayd. Jabba waa kan dambeeye bareefad yar oon xisaabta iyo waxaas aan ka baran jiray ayaa maalin gabar yar oo 13 jir ah oo iga ag dhoweyd qoraalka farteeda aad uga helay. Kadib ayaan idhi, abaayo fartaada way qurux badan tahay maasha Allah. Mar ay habeenkii tahay ayaan ka war helay reer duulaan igu ah oo raba inay i dilaan guriga banaankiisa taagan. Markii la eegay oo loo baxay waa gabadhii reerkeeda. Waxayna leeyihiin gabadhiina soo saara Qumayada ah. Gabadheennii ayada ayaa ka dul hadlaysa. Deriskii dhanba isku soo baxay. Gabadhii ayaa loo tegey. Mise wallaahi anaa ka dhex hadlayo. Aad iyo aad baan u naxay. Maalintaas si rasmi ah ayaa la ii takooray. Wixii hore been ayuu ahaa. Qofka tuulada imaanaya iyo kan ka baxayaba aniga ayuu iska kay ilaaliyaa. Kaligay ayaa noqday. Warka aan kuu soo koobee asxaabtaada ii weydii Qumayo miyaan ahay aniga. Maxaa la ii takooray? Timihii waan iska jaray. Guriga kama soo baxo. Xitaa albaabka ma soo istaago. Gabdhihii walaalahay ahaa oo dhan waa la guursaday. Waxaa dhacday xitaa walaashay iga yar ninka qaba. Markii hore aniga ayuu isoo doontay. Kadibna hooyadiis ayaa deriska ka soo maqashay inaan Qumayo ahay. Wiilkeedii ayay ku tiri tan waa Qumayo ee ha isku guursan waad dhiman. Aabahay wuu inacay. Hooyaday sidoo kale. Walaalahay dhammaan caayda dadka ayaa ii dheer. Wax kasta oo luma ama halaabo aniga ayaa liigu nabayaa. Magacaygu wuxuu noqday Qumayo. Aniga Qumayo miyaan ahay ii sheeg.